magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan dalka Soomaaliya waxay ku taalaa bartamaha dalka iyadoo uu maro webiga Shabeelle ee ka yimaada dalka Itoobiya waxay u qaybsantaa 4 xaafadood magaalada Beledweyne waxay leedahay taariikh fog marka laga hadlayo waxay leedahay 2 buunto oo lagu kala magacaabo Bundaweyn iyo Liiqliiqato haddaba qaar ka mid ah nabadoonnada magaalada Beledweyne oo in muddo ah ku noolaa magaalada ayaa waxay ka warbixinayaan taariikhda ay leeyihiin boodooyinka iyo gobolka Hiiraan meelaha ugu caansan marka laga hadlayo dhulka ugu taariikhda dheer ayay ka mid tahay buundadan oo kaliya maaha waxa ka mid ah buundada Buulaburte waxa ka mid ah buundada Bataqaana Mustaxiil waxa ka mid ah Liiqliiqato waxa ka mid ah buundooyin badan oo ku yaala gobolka Hiiraan ساوده بحرين هذه شغله بودنا هذا على كيسان أفري لو أتيكي بيش صدحات كل يسقال بقول صدر يا أفرتي هيا قعنتي مستعمرات ده استعمار كل سنة كذب ودعاء فربنا هيا لو شقيسي سيرا أول سعتابا فربر كان هذا هيا جبتي هيا اعتنا المسمي للإنجنير وهذا الانتي ولا يرادو ما شاء الله يسته هيا ديسمبر كي قدام بيسنا sidaas aawadeed goobtani waa goobaha ugu taariikhda dheer leh gobolka Hiiraan waxay ku jirtaa meelaha farqutiriska oo aan la bedelin taariikhdoodii inkastoo ay jirto dhul badan oo taariikh lahaa oo lala diray taariikhdooda oo la burburiyay ama dad shacab burburiyeen ama qaar dawlad sheeganaya ay burburiyeen oo la tirtiray sidii loo baabi'in lahaa haykalkii magaalada madaxdii gobolka Hiiraan ee Beledweyne magaalada Beledweyne waxaa dhex mara webiga Shabeelle waxaana ay u muuqataa jasiirad oo kale marka la gaaro xilli roobaadka magaalada inta badan dadka waxaa saameyn ku yeesha fatahaada uu sameeyo webiga Shabeelle Bashiir Cabdulla Cusmaan telefishinka caalamiga ah ee Ariel TV Beledweyne